Xabiibo Maxamed Xalane waa hooyo Soomaaliyeed oo la xanuunsan xanuunka kansarka. Waa 45 sano jir aanan lahayn awlaad iyo cid kale oo caawisa. Waxayna ku xanuunsan tahay muddo 5 sano ah magaalada Muqdisho. Waxaana haysta duruufo nololeed oo aad u cakiran. Xanuunka oo ka saameeyay qaybo kala duwan oo jirkeeda ah ayaa sanadkii 2017 waxaa naaska bidix looga jaray isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho kadib markii uu ku faafay dhaqaatiirtana xal ay u arkeen. inkastoo qaliin lagu sameeyay haddana ma uusan soo afjarin saameyntii cudurka uu ku hayay hooyo Xabiibo Maxamed, waxaana sida idin muuqata uu ku faafay qaybo kale oo jirkeeda ah oo ay ka mid tahay gacanta bidix. dhaqaatiirta ayaa tilmaamtay in aanan wax looga qaban karin gudaha dalka una baahan tahay dalka dibaddiisa in lagu soo dabiibo. waxaa xusid mudan inaysan lahayn awood dhaqaale oo ay dalka dibaddiisa ku aado. haatan waxa ay ku nooshahay kuna xanuunsan tahay qolka aad u jeedaan, waxaana ku haysta duruufo nololeed oo isbiirsaday oo ay qayb ka yihiin dhaqaale xumo iyo daryeel la'aan. Raaxo Xasan Xuseen waa gabar ay eedo u tahay, waxa ay ka warbixinaysaa xaaladda eedadeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aniga Raaxo Xasan, maamadan oo eedaday ah Xabiibo Maxamed Xalane lagu magacaabo. waxay 2017 ay la xanuunsantahay ilaa hadda muddo dheer cudurka kansarka ah oo laga gooyay gacanta oo naaska midigta. gacantana ay aad u baratay. haddana waxaan ku sheegay markii oo la qaadan leeyahay ama caafimaad wayna caafimaad waysay, markii kalena naaskii kale uu la bararay, gacantina ay la weynaatay. xanuun badan oo ku ay la jiifanayeen dhaqaatiirta oo dalka joogtana waxay noo sheegtay inaan dalka wax looga qaban karin Soomaaliya. waxaan walaalahayna muslimiinta aan ka codsanaynaa inay maamadan wax noogu qabtaan muslimiinta ah. qof kasta wuxuu awoodo muslimiinta ah waxay noogu soo xiriiri karaan lambarka 20 ay noogu soo xiriiri karaan qof. haddaba qof kasta oo awood u leh in uu caawiyo maamo Xabiibo Maxamed Xalane waxa uu kala xiriiri karaa telefoon nambarada shaashada idinkaga muuqda. haddii aadan wax kale awoodin, fadlan aan u wada duceeyno oo aan gaarsiino muuqaalkan dadka kale ee awoodda u leh inay caawiyaan. Farax Cabdi, warbaahinta Midnimo, Muqdisho.